lixda bisha February oo sanad kasta laga xuso maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka hablaha ayaa dowladda heer qaran ee la dagaalanka gudniinka hablaha ee Nefis Network oo ay ku bahoobeen 20 urur iyo sidoo kale daneeyaasha ka shaqeeya hawlaha la dagaalanka gudniinka habluhu waxa ay soo saareen war saxaafadeed ku saabsan ansixinta xeerka joojinta gudniinka hablaha. War saxaafadeedkan ayaa waxa lagu yiri maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka hablaha ku beegan 6 February waxay dowladda heer qaran ee la dagaalanka gudniinka hablaha ee Nefis Network ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliland in ay meel mariso xeerka iyo siyaasadda joojinta gudniinka hablaha kaas oo muddo dheer qabiyo qoraal ahaa sida uu qeexayo qodobka 6 faqradiisa labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu farayaa in xukuumaddu ay dhiirigeliso xeerna ka soo saarto xaq ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan shareecada waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jirkooda. sidoo kale qodobka 24 faqradiisa labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu damaanad qaadayaa in qof kasta ay xaq u leeyahay in la nabadgeliyo jirkiisa dhaawac iyo waxyeello kasta oo jirkiisa loo geystana ay ka reeban tahay. gudniinka habluhu waxa uu qayb ka yahay caadooyinka lagu dhibaateeyo haweenka sida oo kalena waa xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadamaha. waxa war saxaafadeedkaasi sidoo kale lagu yiri boqolkiiba 99 hablaha Soomaaliland waxa ay maraan dhibaatada gudniinka mana jiraan xeer iyo siyaasad mamnuucaysa caadadaasi taas oo macnaheedu ay tahay in aanay dawladdu lahayn mowqif cad oo lagu maareeyo caado dhaqameedka waxyeelada ku ah haweenka. qorshaha horumarinta qaranka ee labaad waxa dawladda Soomaaliland ay ku ayiday yoolasha horumarka waara oo ka mid yahay yoolka shanaad bartilmaameedkiisa saddexaad oo si cad u qeexaya in la joojiyo caadooyinka dhibaatada leh sida gudniinka hablaha maadaama ay dawladdu u hoggaansan tahay xeerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta gaar ahaan kuwa nugul oo ay ka mid yihiin haweenku. meelmarinta xeerka iyo siyaasadda joojinta gudniinka habluhu waxay noqon doontaa tallaabo togan oo ay hore u qaaday dawladda Soomaaliland si loo gaaro ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta ee dastuurku damaanad qaaday. ugu dambeyntii war saxaafadeedkaasi waxa lagu sheegay dawladda Nefis iyadoo wakiil ka ah 20 urur ee xubnaha ka ah iyo daneeyaasha kale ee ku hawlan joojinta gudniinka hablaha waxay cod dheer ugu baaqaysaa in dawladda Soomaaliland ay ansixiso siyaasadda iyo xeerka joojinta gudniinka hablaha inta lagu guda jiro sanadka 2020. dib u dhac kasta oo ku yimaado helidda xeer iyo siyaasad cad oo joojinaysa dhibaatada gudniinka habluhu waxay sii tarminaysaa dhaawaca maalinlaha ah ee loo geysto hablaheena waxaanay daciifinaysaa dadaalada loogu jiro joojinta gudniinka hablaha taas oo ka dhigi karta Soomaaliland wadan ka dib dhacsan ilaalinta xuquuqda haweenka. war saxaafadeedkan waxa ku saxnaa gudoomiyaha dawladda Nefis Network Khadra Umar Xasan.